kulanti wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka. maantana waxaan daha kaga rogi doonaa qaybtii 10aad ee kobcii islaamiyiinta Soomaaliya. daawasho wacan. khilaafkii gamaasanaa ee islaamiyiinta khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay xagga fikirka ah islaamiyiinta Soomaaliya. saaxadda ayuu ka baxay al-ahli al-islaam oo shaqeynayay 1973 ilaa 1978. khilaafkaasi waxa uu xiriir la lahaa kooxdii Masar ee xabsiyada laga sii daayay, waxaana la xusaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud hogaamiyihii al-ahli al-islaam inuu u janjeersaday afkaarta kooxda takfiirka. islaamiyiinta badankood kuwa gudaha Soomaaliya ay qaateen fikirka jamaacatul muslimiinka takfiirka ah marka laga reebo xubnihii xabsiyada ku jiray. hase ahaatee xubno badan ayaa ka noqday fikirka takfiirnimada kolkii loo caqli celiyay. Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax ayaan weydiiyay u janjeersiga dhalinyarada ee takfiirnimada. waxa uu igu jawaabay fikirkaasi waxa uu asal ahaan ka yimid xabsiyada Masar kolkii dawladda xirxirtay islaamiyiin aad u badan si weyn loogu ciqaabi jiray xabsiyada ay ku xirnaayeen gudahooda ayaa fikirka takfiirnimada waxay soo faafiyeen xabsiyada Masar. su'aal kale ayaan ku celiyay sidee Soomaaliya u saameeyay takfiirnimadu. waxa uu igu jawaabay dhalinyaradii baraaruga islaamka ayaa joogsan weyday maadaama kacaanku xirxiray culimadii waaweyneed ee hagi jirtay. dhalinyaro badan ayaa dhinaca takfiirka u leexday, balse markii dambe oo culimada xabsiyada laga soo daayay ayaa si weyn wax looga qabtay, aad ayaana loogu caqli celiyay dhalinyaradii degdegaysay. ma daboolnayn jaamacatul muslimiin inay ku baahday dhalinyaradii baraaruga ee al-ahli al-islaamna noqdeen kuwo ku jaha wareersan tuubiyaha dhabta ah ee mustaqbalka qaadi doona si loo helo bulsho ku baraarugsan diintooda dhan walba. jamaacatul muslimiinka takfiirka haddaynu wax yar ku hakano, jamaacatul muslimiinka takfiirka dhaqdhaqaaqa la yiraahdo waxa aas-aasay Shukri Sacad Mustafa Ahmed Abu Sacad. waxa uu ku dhashay dalka Masar 1942 isagoo dhalinyaro ayuu ku biiray Ikhwaanul Muslimiin. waxaa la xiray 1965 xabsiga ayaa laga sii daayay 1971. kadib ayuu Shukri Sacad Mustafa Ahmed Abu Sacad bilaabay in uu dhiso xubno ka mid ka noqonaya kooxdiisa jamaacatul muslimiin. waxa uu Sebtembar 1973 hogaamiyey kooxda jamaacatul muslimiinka takfiirka ku amray in ay ka gooni ahaadaan oo iska bari yeelaan bulshada islaamka sheeganaysa ee gaalo raaca ah. waa sida ay aaminsan yihiin. al-ahli al-islaam hogaamiyaheeda Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ayaa isagu ku qancay afkaarta kooxda loo yaqaan takfiirka, waxaana la sheegaa in afkaartaasi ku dhiiriyay aqoon-yahan Masaari ah oo macallin u ahaa. inta badan xubnihii al-ahli al-islaam ee gudaha Soomaaliya joogay waxay wada qaateen fikirka takfiirnimada, waxaana hormuud ugu ahaa Xuseen Cali Xaaji oo ahaa madaxa al-ahli al-islaam, maadaama uu xabsiga ku jiro Cismaan Cabdulla Rooble madaxii al-ahli al-islaam ee Soomaaliya, iyo xubno ay ka mid ahaayeen Axmed Nuur Carab, Cabdiqaadir Maxamuud oo Muuse. waxaana waqtiga Soomaaliya ka jiray al-islaax qarnul Afriqiya takfiir iyo xubno yar oo qaybtooda badan xabsiga ku jira kuna dhiganaa al-ahli al-islaam. Dr. Saadiq Inow ayaa ka sheekeynaya waqtiga uu xabsiga ka soo baxay. waxa uu yiri kolkan xabsiga ka soo baxay ayaan baadi goobay asxaabteydii aan saaxiibada ahayn ee ka midka ahaa al-ahli al-islaam, gaar ahaan madaxii Xuseen Cali Xaaji. dhammaan asxaabteydii waxay ii sheegeen in aan kolkii hore ahayn kuwa habowsan. aniga iyo raggii ciidanka galay waxay ii raaciyeen in aan doonayno mujtamaca in ay ka dhex baxaan oo degaan walaweyn ama daafeed, kolkaasna ay ku dhaqdaan beerahana qotaan si ay bulshada aan caqiidada lahayn uga fogaadaan. aad ayaan ula yaabay isbedelka gunta weyn ee ku dhacay xarakadii al-ahli al-islaam, waxaana kaloo qaadan waayay oo ka maagay in hawshii ciidanka ee aan aaminsanaa in ay xaq tahay kooxdeedii qayb ka mid ay igu yiraahdaan xaq ma ahayn. sidaa ayuu yiri Dr. Saadiq Inow. Dr. Saadiq Inow waxa uu dib ugu noqday raggii uu xabsiga kula xiraa, kuwaas ayaana markii dambe uga caqli celiyay halka arrimuhu ka khaldan yihiin, waxaana uu ku qancay wacyigelinta culimada xabsiga kula xiraan jiray ee arrimahan u kala cadiyay. waxaana ka mid ahaa Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax,
kama marnayn meesha in xubnihii kasoo baxay xabsiga qaarkood la dhaceen afkaarta takfiirnimada. ragga u weecday toobiyaha takfiirka waxaa ka mid noqday Ismaan Cabdulla Rooble oo isagu dhinaca takfiirka u weecday. sidoo kale Axmed Cali Axmed ayaa ka hadlay saameynta takfiirku ku yeeshay al-ahli al-islaam. waxa uu sheegay in la faray in ay akhristaan kitaabada kale ah Mustalaxaatul Arbaca oo uu qoray Abu Aclaa Mawduudi oo u dhashay dalka Pakistan iyo Macallim calaa dariiq oo uu qoray Sayd Qutbi. dhaqdhaqaaqa jaamacatul muslimiinka takfiirka ayaa ku bilowday si tartiib ah. xubnaha ka midka ahaa uma istaagi jirin salaanta calanka samaafarayaasha wadooyinka kala haga. xubnihii ka tirsanaa al-ahli al-islaam waxay badankood aqbaleen afkaarta takfiirka marka laga reebo Cabdiqaadir Jasiira, Cali Abshir, Cabdisalaam Sheekh Ibraahim, Sheekh Maxamuud Ciise Maxamuud, Sheekh Xasan Daahir Aways, Sheekh Axmed Daahir Aways, Sheekh Cabdiqaadir Cukaasha, Cabdiraxmaan Dhagaweyne iyo Axmed Cali Axmed oo ka biyadiiday fakarkaasi. dadka qaar waxay ku fasirayaan isbedelka ku dhacay Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ee uu ugu leecay dhinaca takfiirka waxaa sababay in uu ka fogaado al-islaax hoggaankeeda oo ay afkaar ahaan ku kala duwanaayeen. istiraatiijiyadiisa takfiirka ku riixday ayaa saldhigeedu ahaa in uu fakarkaasi kaga adkaan karo al-islaax qarnul Afriqiya. waayo ikhwaanka caalamiga ayaa ku xirnaa al-islaax qarnul Afriqiya iyo Sheekh Maxamed Garyare inuu fakarkaasi takfiirka kaga kasban karo dhalinyaro badan oo la dhacsan aragti ahaan in laga dhex baxo oo laga fogaado bulshada islaamka sheeganaysa balse habowsan. waa sida ay aaminsan yihiin in afkaarta takfiirka ee baahaysay aad looga hortagay kolka kadibna dhalinyaro badan ay kasoo laabteen. garab kale oo ka mid ah jaamacatul muslimiinka takfiirka ayaa ka duwanaa kooxda uu hogaamiyo Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud. kooxda kale ayaa ku dooda in ay iyagu yihiin jaamacatul muslimiinka takfiirka dhabta ah. waxaa qoraal ii soo diray Maxamuud Nuur Cismaan Keenadiid isagoo iiga jawaabayay su'aalo aan weydiiyey si uu waayo aragnimo iiga siiyo kooxda. waxa uu ii sheegay sida kooxdaasi loo aas-aasay. waxa uu yiri 70-maadkii waxaa ka muuqanayay dowladii Soomaaliya ee kacaanka ahayd waxyaabo haddii diinta islaamka lagu miisaamo noqonaya kufri ama diinka bax, sida xayiraada shareecada islaamka, fogaanshaha ku dhaqanka, xabsi iyo dil la saaro cidda nooleynaysa, ku dhawaaqida hanti wadaaga cilmaaniga ku dhisan sida ragga iyo dumarka, xagga dhaxalka iyo arrimo kale. qof kasta oo tafsiirka Qur'aanka dhageysta ka shakinaya in ay dowladda Soomaaliya iyo inta raaliga ka ah jiritaankeeda ay ku jiraan xerada islaamka una baahan yihiin in loogu yeero toobadkeen dhab ah. waxa uu sii sharaxay fikirkaasi. waxa uu yiri casharadii tafsiirka Qur'aanka ayaa dadka aad u saameeyay kuna garteen in ay dowladda gaalowday. waxaana casharada tafsiirka ugu weynaa kii uu akhri jiray Sheekh Nuurudiin Cali Culuw masjidka Arbaca Rukun 1978. waxaa goobtaasi ka dhex dhashay raggii ku taxnaa tafsiirka su'aalo jawaabtooda isku khilaafeen oo ahaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ma muslim baa mise waa kufaar, dadka badan ee adeecsan ma la xukun baa mise waa ka duwan yihiin, ashahaado afka laga yiraah iyo sheegasho islaamka la sheegtaa ma ku badbaadayaan qofku haddii uu dhaqankiisu noqdo dhaqan gaalo. dooda noocaas ah waxaa ka dhashay laba fikir oo iska soo horjeeda. midka koowaad waxa uu si cad u leeyahay dowladda iyo inta raacsan waa kufaar gaalo, waxaana waajib ah in laga baxo hoggaankeeda iyo in la adeeco wuxuu xaqu yahay. dhinaca kale wuxuu lahaa dadkiisu gaalo ma aha, waase dambiilayaal muslimiin ah. qolada fikirka hore waxaa la oran jiray takfiir, kuwa kalena waxaa loogu yeeri jiray tasliim. dadka nala fikirka ahi ma ahayn kuwa isbedelaya oo hadba magac hor leh yeelanaya, waayo kursi iyo xukun uma aanan ordaynin. dad badani sahyool uma ahayn ee waxay doonayeen in ay naftooda ka badbaadiyaan naarta Alle, raali ahaanshihiisana raadiyaan. waxayna garteen in badbaadadu tahay in caqiidada cibaadooyinka iyo la dhaqanka dadka la waafajiyo kitaabka iyo sunnaha Eebe.
Master Kennedy waxa uu ka hadlay sida loo aasaasay kooxdiisa isagoo sharaxaya. Waxa uu yiri dadka isku wada aragtiha isma wada aqoon, ciriiri, baqdin iyo isdabagal badanna waa jiray. Wixii isku kalsoonse xaq waa ku balami jireen. Sidaas darteed ayaan bilowgii 1979 annaga oo ah 13 xubnood oo dhalinyaro ah ku bilownay in aan naftanaga islaamka run ah ku badbaadino. Intii wax naga maqlaysayna waan u gaarsiinay, balse ballankaasi ayaa waxaa ka dhashay jaamacatul muslimiinka takfiirka ah. Daawadeel intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii 10aad ee kobcii islaamiinta Soomaaliya. La soco qaybaha dambe.